munaasabadani waxay midinta badan kulmisay haldoorka bulshada reer Soomaaliland isla markaasina tirdan la magac baxay haniye milo oo lagu dhiirigelinayo daayirta halabuurka ee gobolka Togdheer ayaa waxa munaasabadaasi soo qaban qaabiyay ururka Halkaraan waxaana tirtankan uu ka qabsamay xarunta jaamacadda Addis University ee magaalada Burco ayaa waxa tirtan suuganeedkaas ugu horantiba ka hadlay gudoomiyaha ururka Halkaraan Saarladan Maxamed Cali iyo Xamse Cabdi Ibrahim oo kamid ah ururka Halkaraan isla markaasina shakhsiga keenay tirtan suuganeedkan haniye milo ee lagu dhiirigelinayo daayirta halabuurka ee gobolka Togdheer markaa wad ku ogeedeen Halkaraan group inay cid kasta oo ay ku tuhmayaan wanaaga ummadda inay gobolkiina idinku keenaan xamse waxaan uga mahad celinayaa barnaamijka haniye himilo oo uu yahay qofkii maskaxdiisa ka soo maaxday barnaamijka haniye himilo waa barnaamij aan ugu talagalnay inaan gobolka kaga wacyigelino qabyaaladda iyo dhibaatadeeda waliba mawduucan aanu dooranay gabayada qabyaaladda dhibaatadeeda ka hadlaya dhalinyarta caawa ku tartami doono waxaan ognahay bulsho badan ama dhalinyaro fara badan oo hibooyin leh inaan haysanin maaragtay meel ay ku soo bandhigaan oo sidan oo kala inay gabigoodii ama khiyaalkoodii sheekadoodii wax kasta oo niyadooda ku jiray inaan chance helin ay dadka kula wadaagaan ujeedooyinkan barnaamijkan oo asaasnay kowtaas ka waxa kale oo iyadana ujeedooyinka kamid ahayd dhiirigelinta hibooyinka daahsoon ee ku duugan dhalinyarada in iyaguna sida aan sheegay kale ay helaan iyaguna stage ama masrax ay ku soo bandhigaan hibadooda waxa kale barnaamijkan qayb ka noqon doona hadii ay ka dhigo saan ku wadno xoojinta isku kalsoonaanta nafta in qof naftiisa ku kalsoonaado oo qofku noqdo qof hadli kara oo ummadda la hadli kara oo soo bandhigi kara maaragtay wuxuu doonayay wuxuu diidayaba geestoodana waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah guddiga garsoorka tartan suuganeedkan haniye milo kuwaas oo halkaasi ka taabtay hamiyada ay bulshada u leeyihiin kulamada noocan iyo kaleeta waxa lagu eegayaa dareenjiidka Allah wuxuu gol xaal u ahaa yani inaad dadka qabato maskaxdooda aad dareenka qabyaaladda wax dhagaraysan oo dareenkooda jiita aad keento waxa la eegayaa qiyam dhaqameedka sideeba dhaqankaaga ugu soo dartay ee aad u tidhi qabyaaladdu waa geel caynkaas ama roob daay ma ku soo dartay ba isweydiin leh xadiis ma adeegsatay gabaygaaganaad shubayso ee boqolka bayda baadida ninbaa kula daydeedaa la kaa badan ee aan hadal hadhow lagaaga aayo golayaasha laga yidhaahdaa ma ku dhex jiraa saas ayaynu raalli ku kala ahaanaynaa annana xagga limaynu saas ayaynu ku kala raalli ahaanaynaa aad iyo aad oo mahadsan tihiin inaad hankiinna ku soo saartaan suugaan awrka mar haddii laba la soo siiyo dhal wanaag faan kuma aha war mar haddii ahaa urura sheeganaysaan suugaan mug iyo miisaan bale waa la idinka fadhiyaa hadhowta marka baritanka loo baxo haldheeriga ninka yeeshaa waa meeshiisa waayo waxaan taa ku caddaynayaa in haldheeriga ciidoon yeelan doonto abwaan kayse xuseen baa wuxuu yidhi ilaahay ha u naxariistee hadal waa bun iyo boqol baydkana nin baa hela mar haddii raggu ay isu soo baxaan ugu dambaynta nin uun baa wiingaraynaya intaasi kadib ayaa waxaa loo gudagalay dhegeysiga gabayadii kala duwanaa ee halabuuradii ka soo qayb galay tartankan haniye himilo ay ku tartamayeen كما داشو صومالي دوحتي وعيلي كما داشو أقل دوميو ما تدايعاني كما داشو دولان كيو ويرر دايما كما داشو دوغها قبيل دعاري كيناني أفتان قرار كي تحدي قوائه دي دهر أقول كي قوتين جريو قادية هوراد قوش هذا الكلوغة متغير قضب كربان عركو سيبر روب قابلو قوية دونيديبا اوكد قرر عليه هلا قولنا لغا ايبو dhulku qadawga buuxsamay xareed lagu qaboobayo guyaaq dayro joogtiye sabaan loo qastiyay raaco
جيران قيرة شوكتا إذا سبب لو قستيه راح رمض قايوين يهدى قوة سوق درشو gabagabada ayaa waxaa tartan suugaaneedkani soo afmaray suduwaha gobolada bariga ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Cabdirasaaq Siciid Xaaji Axmed iyo aqoon-yahan Maxamed Saleebaan marka labaad waxaan halkan runtii farxad bay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan leh waxaan u mahad celinayaa oo aan sharaf leh ku salaamayaa oo kaliya laaba dhalinyarada munaasabadan soo qabanqaabisay iyo kuwa ka soo qayb galayba loogu talagalay in lagu abuuro jawi la jeclaysto oo magaalada Burco ka dhasha haniya himilo waa barnaamij loogu talagalay in la isugu soo dhaweeyo dhalinyarada gobolka Togdheer iyo guud ahaanba dhalinyarada Somaliland in lagu abuuro deegaan la jeclaysto la xiiseeyo in la abuuro Burco aan laga hayaamin ee loo soo hayaamo Burco loo soo hiloobo Burco wada jirta oo wada fadhida waa Khalid Bakeele shabakada caalamiga ee Itraaf News Burco.